madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma qofka kow iyo tobnaad ee afrika ugu taajirsanba hantidiisa 980 milyan oo dollar ma dhan tahay ciyaarta meel walbaa joogtaa waa salaaman tihiin waa maxamed faarax dee maanta baraha bulshada waxaa ka socdo arrin ah sawir inta lasoo saaray lagu qoray waa qofka kow iyo tobnaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu taajirsan afrika 980 milyan dollar uu leeyahay hay-adda forbes ayaa soo bandhigtay baaristan markaan arkay dad badan oo ka hadlaya baraha bulshadana aan arkay waxaan garawsaday inaan baaro oo websiteka forbes aan tago ChatGPT tago google ka baaro macluumaad badan aan raadiyo world bank tago meel walba aan baaro khaasatan hay-adda forbes markaan tegey aan baaradadka africa ugu taajirsan waxaa ii soo baxay listigan 2025 22 qofba 22 qof oo africa ugu taajirsan nasiib wanaag madaxweyne xasan sheekh maxamuud 22 qof kuma jiro qofka kow iyo tobanaad ee africa ugu taajirsan 2025 magaciisa waxaa la yidhaahdaa isaad rebraab waana algerian 81 sano jir ah kana ganacsada cuntada qofka koowaad ee africa ugu taajirsan waxaa la yidhaahdaa aliko dangote waa nigerian muslim oo caana hantidiisana waxay dhan tahay 23.9 billion dollars sidaa u joogtaan walaa 22 qof madaxweyne xasan sheekh kuma jiro xataa qof soomaaliya kuma jiro hay-adda forbes ayaana leh baaristan marka meel warkaas sheegaya ma jiro hay-ad kale oo ka hadashay xataa ma jiro markaan sii baaray oo aan google tegey meelo kale tegey meelay kaga qoran tahay ama source ama joornaalo ama warbaahin sheegayso ma laha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa 980 milyan dollar hantidiisa ay dhan tahay marka arrinkaas waa been aan sal iyo raad lahayn gunaanadkii dadka arrinkan faanayo waxay ugu dan leeyihiin madaxweynaha inay sumcadda ka dilaan ajenda gooniyay leeyihiin marka dadka ka hadlayo warka intuu kusoo gaarin ka hor baar kabacdi mataqaana ka hadal oo faafi dad badan oo faafinayaan arkay oo dhaleeceynaya madaxweynaha ku dhahayo real estate ayuu ka ganacsadaa hantidaas qaranku ka xaday dowladda soomaaliya ku xaday bla 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 dee wax cad ayaa loo baahan yahay dadka in la hordhigo oo raadraac leh soos leh hay-adda forbesna madaxweyne xasan sheekh maxamuud listiga uma jirto 980 milyan oo dollarna ma haysto qofka kow iyo tobanaad ee africa ugu taajirsanna maaha marka walaalayaal videogan la wadaaga dhammaan ummadda soomaaliyeed runtana aan isu sheegno madaxweynaha dhaleecinta laga dhaafo